Asalaamu calaykum. Ku soo dhowow maanta iyo muuqaal cusub. Intaynaan muuqaalka bilaabin, fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saaro oo ku soo biir. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Ninkan lagu magacaabo Stewart gurigiisa waxaa yaala caruusad ama boombalo saad u taqaanidba. Marmarka qaar hurdada waxa uga soo kacaa iyada oo dhaqaaq ama muujinaysa sida kuwa ku jiraan baytariyada oo kale dhaqaaq ay sameeyaan iyadoo aanay waxba dhaqdhaqaaq ah loogu talagelin inay sameyso bahashani. Bahashana waxa uu ku sheegay in ay wax ku jiraan sida jin camal oo kale ah. Markana waxa uu hordhigay kaamarad wejigeeda waana ka tegay si uu hadhow ogaado bal waxa ay sameyso. Gaarigan xawaaraha ku socda wadadan dhexdeeda ayaa waxa ku dhacday arrin la yaab leh. Si naxdin leh waxaa wadada ugu soo dhacay geed kaas oo sababi karay in uu darawalka gaadhigaas waday uu shil galo oo halkaas ay dhimasho ka dhacdo. Markii uu ku soo dhacay wadada aad iyo aad ayaa uu uga naxay darawalku. Shakhsigan gurigiisa ayaa weerar ba'an lagu keenay. Meel kasta codad ayaa ka baxaya. Alaabta guriga taalay ashyaaduna dhaqaaq ayaa ay sameynaysaa. Markan kaamiradiisa ayaa uu soo qaatay si uu wax u sawiro. Kooxdan dhalinyarada ahi waxay galeen godkan oo lagu sheego inay joogaan ama ay ku dhex jiraan waxyaabo aad iyo aad uga cabsiya dadka kale ama booqda. Waxayna kala kulmeen wax aad uga cabsiyay. Dhalinyaradii wax aan la garanaynin ayaa ay kala kulmeen weerar aad u ba'an soonana weeraray oo soo eriyaday aadna uga cabsiyay.
saddexdan qof waxay ku jireen safar waxay u soo daadegeen dhulka meeshan oo meel cidla ah oo waana waqti dambe ee habeenimo ah waxay iska shiteen dab iyo ilayskii kale ee iftiinka ah kadib waa iska wada sheekaysanayeen oo iska wada qoslayeen laakiin markii dambe maxaa ku dhacay kaligood ayaa meeshan cidlada ah ku sugnaa mar keliyata waxa ay dareemeen codadkaas oo marba marka kasii dambaysa usoo dhowaanaya aad iyo aad ayaynu u cabsadeen ayna la kulmeen weerar meeshan waxaa ka dhacay dagaalo aad iyo aad u badan waxaana ku dhintay dad aad iyo aad u badan dadkuna ma booqdaan oo aad iyo aad ayay uga cabsadeen waxay ka aaminsan yihiin inay meeshan waxyaabo kale ay degan yihiin ninkan ayaa soo booqday isagoo kaamaradiisa sawir ka qaadanaya meeshan ayaa waxa uu la kulmay waxaan u soo muuqday ninka wax tafsiir ah ama wax lagu sheego lama garanayo waxuuna aaminay inay meeshan wax degan yihiin